maamuuska iyo soo dhaweynta fanaanada qaran Maama Khadiija oo Daahir Axmed Boqran oo ahayd marwadii Allaha u naxariistay abwaankii Soomaaliyeed abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub ayuu ahaa ujeedka munaasabadan cashab sharafta ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta xildhibaano agaasinka warfaafinta madaxtooyada qaranka agaasimayaal abwaano ehelada abwaan Singub iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabadan waxaana in badan lagu iftiimiyay kaalinta lama hilmaamaan ee ay fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ku leeyihiin Maama Boqran iyo saygeedii Rabbi ha u naxariistay abwaan Singub abwaan Cabduqaadir Cabdi Shube iyo abwaan Xirsuduux Maxamed Weheliye oo ay waaye badan soo wada shaqeeyeen Maama Khadiija iyo abwaan Singub ayaa ka sheekeeyay taariikhda faca weyn ee ku leeyihiin fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. Khadiija waa gabadha ninkii qanuu yaqaan ninkan aqoon caawan u sheegaynaa Soomaaliya inay tahay hooyo Soomaaliyeed oo dhaba fankana u tahay hooyo gaara sababtoo ah Singub wuxuu ahaa aabbe fanka Soomaaliya bilxaqiiqa ma kala jeclayn ma kala xigsan jirin weliba markasta wuxuu jeclaa kan soo baxaya in la gacan qabto kuwa yaryar oo soo baxaya Khadiija Boqran muxuu ahaa aniga abwaan Singub hadda saaxiib khaas ah ahayn si gaar ah waa isaga ag dhaweyn waxaan ogahay ama aan dareemi karaa sida ay isku ahaayeen iyo heerkay ugu dhaweed iyo siday u gacan siisay iyo siday u garab qabatay Cabdinuur Maxamed Axmed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa Maama Khadiija uga mahad celiyay kaalintii muuqatay ee ku lahayd nolosha abwaanka muddadii uu xanuunsanayay maama waxaan kaaga mahad celinaynaa sanadihii badnaa ee aad garab taagneed abwaankeena Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub markii la qaxay ee qurbaha la tagayna waxaad ka mid ahayd hooyooyinka hormuudka u ahaa in ubadkii Soomaaliyeed qurbaha ku dhashay lagu soo celiyo dhaqanka afka la baro dhaqanka la nooleeyo riwaayadii qabyo 1 iyo qabyo 2 ee dadku wax xasuustaan maama mar kale qulubteena ku intahay intan in ka badanaad bulshada Soomaaliyeed ka mudan tahay waana ku xasuusan doonaa waana ku garab istaagi doonaa waxaan rajaynaynaa insha Allah doorkaagii muuqday inaad sii dardar geliso inaad sii laba laabto sareeye guud Bashiir Maxamed Goobe agaasimaha wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed ayaa ka mahad celiyay agaasinka munaasabadan oo uu sheegay inay macno gaar ah u leedahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed Cabdinuur iyo intii soo qaban qaadisay xafladan sharaf iyo karaamad leedihiin Soomaalinimada iyo isqadarinta iyo xushmada iyo dadkan wax ku oolka markii inoo yimaadaan ama markii muxuu ahaa hadba munaasabad jirto insaan oo kale loo sharfo oo loo soo dhaweeyo oo loo qiimeeyo qiimaheena iyo Soomaalinimadeena iyo sharafteena ayaa kor ugu kacaysa ajir iyo xasanad Allah idinka siiyo ayagana waxaan leenahay xafladan iyo kuwa lamida iyo kuwa ka badan iyo kuwa bilaaran bad naga mudantiin nagana istaahishaan aad iyo aad baan maartay idinku soo dhaweynaynaa waad mahadsantihiin xildhibaan aadan isaaq wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay si dhow uga warqabi doonaan ehelada abwaanka garabkaagaan nahay awlaadaadaan nahay awlaadii abwaankaanu nahay meesha aan joognana waxaan u joogno waa dhammaan Soomaaliyeed si gaar ah xil ayaa naga ka saaran maanta laga bilaabana garabkaagaan taagannahay horena waan u taagneen waana taagnaan doonaa aadana u mahadsantiin ugu dambeyn fanaanada qaran Maama Khadiija oo Daahir Axmed Boqran ayaa ka mahad celisay munaasabada casho sharafta ah ee lagu soo dhaweynayay walaalahay dhamaantiin waxaan idinku mahad celinayaa waqtigiina qaaliga ah ee soo hurteen oo igu sharafteen ilaahay waxaan idinka baryaa in ilaahay adduunka iyo aakhiraba idin sharfo ilaahay waxaan idinka baryaa inaad ilaahay agtiisa qisi iyo karaamo ku noolaataan qofku qof dadkiisu qaali ku yahay qofka qofkiis dadkiisa qiimo ka dhiga qofka binaadamka qof dadkiisa ayaa karaameeya haddaanu dadkiisu karaamaynin waxba ma aha maantana waxaan u malaynayaa inaan cimrigayga inta ka hadhay aanan ilaawi doonin sidaad ii sharafteen isaad noo karaamayseen marka waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba jasaakumullahu khayran Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho.